maxaad ka taqaanaa wadamada caalamka. aanu ku horeyno maanta wadanka Jarmalka oo ku caan baxay sameynta gawaarida. hase yeeshee waxaan idiin soo gudbinayaa 40 wax aadan ka aqoon wadanka Jarmalka waqtigii boqortooyada iyo waqtiga kanba. wadanka Jarmalka waa wadanka leh dadka ugu tirada badan ee heer Yurub. waxaa lagu qiyaasaa 81 milyan oo qof. sida awgeed waxaa lagu magacaabaa wadanka iskale dadka ugu tirada badan ee midowga Yurub, waana dawladda kaalinta 9aad ku jirta dawladaha loo soo tahriibo. wadanka Jarmalka waxaa lagu yaqaanay waayadii hore inay lahayd 7 caasimadood. caasimadahaasi ay kala ahaayeen tusaale ahaan Regensburg iyo Frankfurt iyo Nuremberg iyo Weimar iyo Bonn. waxay ahaayeen kuwaasi caasimado wadanka Jarmalka, waxayna ka horeeyeen caasimada hadeer ee Berlin. wadanka Jarmalka caasimadiisu waa Berlin, waana magaalada ugu ballaaran wadanka Jarmalka, waxayna ka weyn tahay 9 jeer Paris caasimada Faransiiska, waxayna ka biriijiye badan tahay wadanka Talyaaniga. magaaladaas kaliya waa magaalada saddexaad ay ku nool yihiin dad bilaahoyga ah ee midowga Yurub. caasimada Jarmalka ee Berlin waxaa ku nool dadka ugu da'da weyn ee midowga Yurub, waxaana lagu qiyaasaa dadkaas inay tiradoodu yihiin 300,000. wadanka Jarmalka jeelashooda mid kamid ah haddii aad ka carartid laguma soo qabanayo, lagumana xukumayo, waayo dastuurka ku yaala wadanka Jarmalka waxa uu qorayaa inuu qof walba ahaado Joseph Goebbels, wasiirkii hore xukunkii Hitler. dadka uu dhalay waxa weeyaan dadka ugu taajirsan ee waqtiga kan wadanka Jarmalka, waxaana hantidiisa lagu qiyaasay 31 bilyan oo euro. qoyskaasina waxay leeyihiin shirkadda ugu caansan ee gawaarida soo saarta BMW. wargeyskii ugu horeeyay ee caalamka la soo saara waxaa la soo saaray 1663 waxaana laga soo saaray wadanka Jarmalka, waxaana soo saaray abwaankii Jarmalka ee magaciisa uu ahaa Johann Reis, waxaana magaca la baxay dadwanaagii caanka ahaa. wargeyskaasina waxa uu ku koobnaa suugaanta. dagaalkii koowaad ee caalamka, ragga wadanka Jarmalka ku nool waxay ahaayeen rag tiradoodu ay yar tahay. 3 gabdhoodba waxaa ku soo beegmayay hal nin, waxaana lagu dilay dagaalkii koowaad ee adduunka dad gaadhaya 90 milyan. dastuurka Jarmalka waxa uu leeyahay inaan gawaarida la istaajin wadooyinka dhexdooda, waliba wadooyinka baabuurtu ay xoog u maraan. sabab kastaba ha muushidaalku ka go ama cilad kale ha ku timaado, laguma ogola inaad istaajisid gaariga wadada dhexdeeda. qofkii sameeya sidaasna waxaa lagu xukumayaa 80 euro. 1989 ilaa 2009 waxaa la xidhay ku dhawaad 2,000 oo iskuul. sababtuna waxay ahayd inaanay soo saarin arday tayo leh. sanadahan dambe tirada dadka ayaa hoos u dhacaysa. tirada dadka waxay hoos u dhaceen 2 milyan sanadihii hore ee la soo dhaafay. cuntada loo yaqaano hamburger waxaa loogu magacdaamay magaalada la yiraahdo Hamburger ee ku taala wadanka Jarmalka. dadka ka soo hijrooday wadanka Jarmalka goortii ay tageen Amerika waxay soo saareen cuntadaas ayagoo ugu magacdaraya magaaladii ay ka yimaadeen ee lagu magacaabo Hamburger. daawadayaal, waa barnaamijkeeni maxaad ka taqaanaa wadamada caalamka. maantana intaas ayay nagaga eg tahay. intaanu ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah, waa aniga Muxsin Maxamed Siciida oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.